بسم الله أنا وافكري بحس إنه محاها لسن وحال اسم الأعضاء قف كان مركا عرفت إديسة قف كان مركا عرفت إديسة هدي اسكو فيرست بحس وحكون مقنص لابد دقيقة لو حالين كرو هذا دورك ما أنت دجال باخذ وكون حاجة لقى العلنا يكون أنت لقى العلنا صاحبيالو أنا وحان وأركب شيء يجيد أو يجيد قاعد مدالس واحد أرنتي وان كلا هلا دانيارتي صاحبيالو سيربتين عندهن نيو أنا حال مربنا اللي استحبطو أجستو اللي إزدقالو مبدأ إيصو بحثنا محيطة هاي صاحبيالو مديدين إلا سوق قبي أرنتان هل سوق دجيو وقت الحاضر كان أنا وحتى هاي haddii aad diideen in la soo gabagabeeyo oo sida caadiga ah kala dhamaataan hal soo dedejiyo maxaa la soo dedejinaa dagaalka nimaragaatiin isgaraaca isgacan saara daanka ma ahane السلام عليكم magacaygu Cazaam aho barjina ina caafimaad hadii ay tahay marka ku horeysay asoo booqatay bartaan YouTube kalena subscribe sar saa u gaarno 100 subscribers walaashii qaaliga walaalkii qaaliga maanta shalay video kuma soo dhigin sababta tahay wax xanuunsanaa shalay zaad wax xanuunsanaa alxamdulillah xanuunka rabbi subhanahu wa ta'ala ay keenay maanta ilaahay iga qaaday okay walaashii qaaliga qaaliga maanta arimaha ka socda social media ayaan rabaa in aan ka hadlo okay dalka Malaysia dhibaatada ka taalo marunba waxa ka socdo maqalad ba ayaan rabaa in aan maanta faahiyo okay team enjoyasha واتقانين داد وناسن داد كاسي محاك كجرو ديالكا جبرا او نحمري او استيلا ديالكاسي نقضي مد نفط الاسلافسي ايان روا ان ما نكهدو waxaas kuli inay xaq jiraan iyo xaqale hadii ay walaashay tahay walaalkay please muuqaalka ii sheegay nabigana ku sali hooyada aabajan Allah ka waraabiyo okay taas ma ka soo gudbay caadi ah team enjoyer maxaa ka jiro dhibaatada taala xaaladaan maanta ee lagu jiro marunba in enjoyer walaalkiis ka yar in la dilay lagu goobtay maxaa ka jiro okay maxaa ka jiro alfa in gaarigiisi la burburiyay la jibiyay maxaa ka jiro waxyaabo badan oo ku jira social media oo amahan zaaid isku haysto dadka inta badan dhahay Cazaam ada ku nool dalka Malaysia riyaad saxan noo soo gudbi riyaad saxda maanta ay rabaan soo gudbiyo walaashid qali walaalkii qaliya okay hadii codkii ku soo gaari waayo ay u dul qata walaalkiina ahay waxay rabaa xanuunsanaa hargab iyo xasan jiran ee u qata aad ma sidmantina insha Allah waxyaabo badan soo socdo oo muuqaal badan u talgalay bisha Ramadaanka insha Allah billahi karim filmo aad u qurux badan iyo riwaayado badan insha Allah inaha ku haya janaalkeena soddon kuna na gaarsiya soddon waxa ka dhiman waa 3,000 ka dhiman ma qaanadaas ka dhiman na gaarsiya aad u maastin waxa haysta dad maqashay qof dad gob ayuu haysta ama dulaalo haysta qurux badan waa inay haysta dadka inta badan oo snap iga soo weydii maxaa kugu dham xanuunsatahay ha alxamdulillah hadwa fiicana okay arinta raba inaan guud galo team enjoyasha maxaa ka jiro aaway Nuurdin KL muu ka hadlo Nuurdin KL waa gudoomiyaha teamka waa dii asi dadka kulli ee dagaal bilaabeen asiga muxuu sameeynayaa qal la soo dhigay barta walaasheen qaaliya mar dumashadeena marna gabar abtu ahay atishbaadiyo janaalkeeda oo Nuurdin oo ka hadlayay muuqaalkaasi oo na sheegay in dalka Malaysia ku nool dhibaatada taalo arintaasi wuxuu damcay in uu galo oo xal ka raadiyo xalkaasina wuxuu noqday in labada dhinacba ay xal ay ka diideen asiga oo team enjoy ka diideen iyo team jabrana ka diideen okay taas ma soo gudbo dad baa jira oo qoorta isku gilay oo aad isku diray waa Zaki Somali iyo Alfa labadaas nin waa labada dhibaatada wado runta dani sheego aan soo ogaaday labada qofood oo dhib ka wado waa Alfa iyo Zaki Somali asiga de wadreem katin dad wax aan caadihin cabsan way dad cabsan asi Alfa way soo caban kadib bay dadka wax walba ka sheegan Zaki Somali oo dhahay dadka isku keenay oo meel isku keenay oo rabo in dagaal la galo
dagaalkaasi dhibaatada ay leedahay waad ogtihiin waayo ninka boorinayo waa asiga intaas wuxuu ka raadinaa runta deeni sheego ana ma rabi in wax walba maleeshiya ka dhacayo qaar inaan soo gudbiyo sababtoo tahay marka waxa la yaabaa qofkaas dartiisa ama ereg ka dhexda la yaabaa in uu isku dilo ama uu dadka ka gaabsado ana ma rabi in mar walba waxyaabaha qaar baan ka aamusaa laakiin hadda reality ka hadlo qofka bini'aadamka wax ka baqaya in damiirnimadiisa uu isdilo dabaq iska tuuro dadka maleeshiya inta badan dad badan aan inaga ogeynin aan caan ahayn laakiin mar walba dabaq iska tuura isdila dad badan baa jira oo ciid isku dila ma rabi Zeka Somali iyo Alfa in aniga darteeda isku dilaan ma rabi laakiin waxaan sheegayaa waxyaabo walba dalka meesha ka dhaca dadka ka dambeeya waa ayaga walaalay qaaliga iromesta wallahi beemaan oo billaah beemaan oo tala beemaan dadkaasi ayaa ka dambeeya in labada qofood oo qoorta ku galiyaan enjoyasha iimaan amiin waa gudoomiyaha team enjoya teamkaas kulligood isku xiriin waa team walaalo ah dhibkoodna ee ka naxa dheeftoodna wada wadaaga qaybsada okay dadka inta badan Zeka Somali dhibaato sameeyay maxay tahay dadkaasi kullu wuxuu isu tubaraacay Jabra Zeka Somali mar walba sheeg wuxuu fiiriyaa lacag bisa u daran okay Alfa gaarigiisi yaa jibiyay Alfa gaarigiisi oo watay yaa jibiyay team Jabra ma jibiyeen mise team enjoyasha yaa jibiyay waxaa rabaa inaan ku sheego okay Jabra teamkiisa waxaa leeyahay aad ama 60 soo dhawaada team enjoy soo dhawaada laakiin Alfa gaarigiisa wax garaaf ah ma soo gaarin gaari Alfa waa gaarigaasi asirna maskarahan gaarigaasi meel ay ku soo kireystay dadkaas dhaha gaariga uu leeyahay gato gaari ma soo gadan kiro waaye had gaari almost wuu celiyay gaari insurance ku jira gaari si ka jubis insurance ba sameynaya gaari si kasta loo jubiyo waxaan aaminsanahay in gaarigaasi ay sameynayaan shirkadda oo gaariga iska leh okay taas ma soo gudbo maxaa jiro okay maxaa kale okay ninkani kale Alfa ma ninka kale Jabra oo si dhibaato ka wada dalka Malaysia wallahi bay kuma sheegay aniga waa iska aamusanahay waxyaabo badan hada googa waxaan aaminsanahay in xabsi la tagayo Jabrana xabsi geenayo dadka dhibaatada xabsi geenayo waa awooda laakiin ma rabi in waxaas kulli inaan sameeyo Jabrana de haduu marka video gaarsiya haduu marka video ka soo hadlo team enjoyasha ballan waa in xabsi aan geeyo ana xabsi geenayo Jabra haduu marka ka soo hadlo dhibaatada dalka Malaysia oo inuu dhibaato ka sameeyo ballan waa in xabsi la geeyo ana xabsi geenayo waayo wuxuu u maaday dadka isku diro waa rufiyaan season guul ma gaaro ana xabsi geenayo Jabra okay maxaa soo haray waxa soo haray team enjoyer walaalkiisa yaa dhaawacay walaalkooda yaa dhaawacay yaa luq galay yaa dilay yaa sheey karo okay qof sheey karo malahan laakiin waxaan sheegayaa ahaanteeda in mar walba ilaahay ka cabsatid ayaa fiican waaga Jabra okay runtii kuna sheego dhibka fiican dageel ninka wada taqaanin Jabra iyo Alfa iyo Zeka Somali saddexdaasi waa saddexda ugu xun ugu dulsan dulli ah waa saddexdaas aw tarakta aan tukanin jimcihii bisa tukan iyo malciid dadka iska gadaya man taraka salata faqad kafara ilaahay ka baqa war ogahay in ilaahay ka baqeen laakiin ilaahay ka cabsada ilaahay ka baqa qof bini'aadan asku dirna Jabra waxa kula dadkaan iska dhaaf dadkaan adiga kuma haystaan man ku xanaanayeen waa dintooda ka badan laakiin adiga hooyo aan iska dhaaf hooyada adcaaniis waa hooyadaada maanta waxa la yaabaa in hooyadooda ay ka koosayso laakiin adiga hooyadaada la yaabaa in maanta xanuun ay dareemayso marka dhaysid hooyada hooya automatically hooyada dareemayso waa dareemi kartaa mar walba isku day walaalkii qali walaalkii waan islaamaya muuqaalka marida soo dheeraad xeer asal daawano nudikeel ero dhahayo qaan iyo dhalinyarta isdagaalayso iyo koow tan labaadna ah arinta xalay gaariga la jijibiyay tan saddexaad ah arinta wiilka hadda enjoy ka yar ee la dhashta xalay dhaawac lugta la soo gaarsiiyay tan koowaad taa ku hormar horta dhalinyarta is haysato ani waa la sheekaysta labada dhinac intana waa la hadlay intana waa la hadlay waxana walaalayaal maxay isku haysatiin horta muhiimadu xaarar mugta dad markay is haystaan ina ogaatid wax la isku haysto baartaan markaas sameeyay waxa ay soo baxday in qof kale khalad ka tabanay okay maxaa markaa nin walba khaladkiisa ma
dadkaana point ay haystaan dadkaana point ay haystaan so pointiyaasha la isku haysto haddii si u fiirisid saasoo tahay wixiina waa xalis milaahi ani waa fikiray waxa isdhaaniyo maxaa haleysan waa xalis milaada because qofka marka aragtid eediisa iyo qofka marka aragtid eediisa haddii aad isku fiirisid waxa ku muuqanaysa wax 2 daqiiqo lagu xalin karo haddana wixii waa xalis milaahi waxaan isdhaaniyo baash intay ku qurusantaa markii hore waxa isaystay Jabra iyo Team Enjoy so hadda maadaama Jabra kaligiis ma dhigay maantiina oo nurdikeel ka hadlay dhawaatada ka taalo dalka Malaysia ka jirto Jabra oo zaid dagaalkii u soo noqday